أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. الحمد لله إلهكم هاتسن سبحانه وتعالى dib isuu kaana soo celiyey bishii ramadaan oon soo gudanay siyaamkii iyo qiyaamkii. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga aqbalo ilaahay xalqadii cilmiga cashirkii tafsiirka qur-aanka kariimka dib isuu kaana soo celiyey walilaahi alxamdu calaa dalika. intii yara cajistay oo jamaacada ka mida ilaahay cajiska iyo xanuunkaa ka qaado. wax dhimashaa hadda jamaacada kumaanaan maqlin. intii ilaahay caafimaad dib isugu soo celiyana ayagana allah u siyaadiyo. casharkan wuxuu ka bilaabanaa aayadda 253 ee suurat albaqara ka mid ah, waana juska saddexaad. yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluh, tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd. tilka taasoo arrusulu ee rususha ah, fadalnaa waan fadilnay bacdahum rususha qaarkood calaa bacdin qaarka kale korkooda ayaan ka fadilnay oon ka sharifnay. tilka marka ishaaradaas waxaa la ishaarayaa alrusul almadkuuratu min bidaayati suura ilaa huna. suuradda inta badan rusul ayay nooga sheekeynaysay. rusushii aan kusoo qaadanay laga bilaabo nebiyullaahi aadam ayaa ka mid ahaa oo kusoo qaadanay wacallama aadama alasmaa. waxaa ka mid ahaa oo in badan aan soo qaadanay nebiyullaahi muusa iyo haaruun. waxaa kaloon soo qaadanay nebiyullaahi ibraahim, nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi yacquub iyo nebiyullaahi ciisa waan soo qaadanay, iyo rusul kale ayaan soo qaadanay oo ayaguna hadda magacooda aan la sheegin, sida qisadii baaluut iyo jaaluut oo nebiyullaahi yuushac. ilaahay marka rususha ayuu ishaaray waa layidhi. waxaa kaloo mufasiriintu ay yidhaahaan waa rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogeysiiyey ee la baray nebigeenna oo dhan sala allahu calayhi wasalam. tilka taasoo arrusulu ilaahay rusushii uu diray ah, fadalnaa waan fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin. ilaahay awalihiisa waxaa ka mid ah
basharka waxaa ugu fadli badan rususha laftooduna way kala fadli badan yihiin. maxaa yeelay rususha markii la fiiriyo waxaa u fadli badan shanta ululcasmiga ah oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi muusa, nabiyullaahi ciisa, nabiyullaahi nuux. shantaas waa shanta ugu adkaysiga badan oo qur-aanku inta badan uu ka hadlo. sidaas oo kale rususha laftooda shantaas ay u fadli badan yihiin ayaa shantaas haddana lasii kala fadli baday. waxaa u fadli badan nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, nabigeena ayaa u fadli badan. saasaa marka ilaahay usii kala fadli badiyey. minhum rususha waxaa ka mid ah man rasuulkoo kallama allahu ilaahay uu la hadlay. yacni kallamahu mafcuulkii ama caydka waa la iska xadfay. rususha waxaa ka mid a nebi ilaahay uu ku fadilay inuu la hadlay, waa nebiyullaahi muusa calayhi salaam, oo ilaahay uu yidhi wakallama allahu muusa takliima. ilaahay uu la hadlay biduuni waasidati malag uma dhexdhexaynin. ilaahayaa si toosa la hadlay, oo sida ilaahay uu yidhi ma kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan ayaa laga soo reebaa. minhum rususha waxaa ka mid a man rasuulkoo kallama allahu ilaahay uu la hadlay, wa rafaca ilaahay uu kor yeelay bacdahum rususha qaarkood darajaatin heerar iyo darajaad ka baxsan rasuulnimada iyagoo wadaaga ayay haddana darajaad issii dheeryihiin. wa rafaca ilaahay uu kor yeelay bacdahum rususha qaarkood darajaatin darajooyin ayuu ilaahay u kor yeelay, sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo la siiyey shafaacada. asaga baa keligii shafeeci doona, asagii ummaddiisa jannada ugu horeeya. darajaad badan ayuu leeyahay, qur-aankana ka mida oo aan rusushii hore la siin. wa aataynaa ilaahay waxaan siinuu yidhi ciisa, nabiyullaahi ciisehoo ibna maryamo wiilkeeda ahaa albayinaati xujooyinkii cadcadaa ayaan siinay. mucjizooyin cadcad si gooni aha loo sheegay. maxaa yeelay nebiyullaahi ciise ilaahay wuxuu siiyey mucjizooyin cadcad oo rususha kale aan lagu arkin, sida qof dhintay inuu soo nooleeyo ilaahay idankiisa, kan oo indhala-aanta ku dhashay in indho uu yeesho markuu u duceeyo, kan baraska qaba inuu daaweeyo, ilaahayba inuu kor yeelay oo ilaa saacaddan uu nool yahay. wa ayadnaa ilaahay wuxuuhi waxaan xoojinay hu nabiyullaahi ciisa waxaan ku xoojinay biruuxi lqudusi dahirnaanta ruuxdeedii, naftii dahirnaanta. wa ayadnaa ilaahay wuxuuhi waxaan ayidnay oon xoojinay hu nabiyullaahi ciisa waxaan ku xoojinay biruuxi lqudusi dahirnaanta ruuxdeedii, naftii dahireed. waa malakul jibriil ayaa ilaahay ku xoojiyey oo mar walba garab taagnaayo. walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa maqtatala aladiina kuwii may dagaalameen min bacdihim rususha gadaashooda ahaaday, min bacdi maa markii ka gadaal ma dagaalameen jaa-atum ay u timid albayinaatu mucjizooyinkii cadcadaay. walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahay maqtatala aladiina kuwii ma ay dagaalameen min bacdihim rususha gadaashooda ahaaday. laakiin rusushii markay tageen, ummadihii ay ka tageen dagaala ka dhex qarxay. nebigeennaba dhimashadiisii sala allahu calayhi wasalam ummado dhan iyo qabiilo dhan iyo wadano dhan ayaa diintii ka ridoobay oo la dagaalamay. ambiyada markii ay dhinteen ka gadaal ayaa ummadadoodii ay dagaalameen. dagaalkaasna khilaafa salka uu ka dhashay, wuxuu ka dhashay khilaaf. walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahay maqtatala aladiina kuwii may dagaalameen min bacdihim rususha gadaashooda ahaaday, min bacdi maa jaa-athum maada masdariya min bacdi majii'i lbayinaati iyaahum. mucjizooyinkii cadcadaa imaanshahoodii ka gadaal maysan dagaalamen. waxay isku dagaaleen waxawaaye mucjizooyin cadcad ayay haysteen, in diinta lagu midoobo, in tawxiidka lagu midoobo, inaan la iskhilaafin, inaan la dagaalamin. min bacdi maa maladii markii ka gadaalma ay dagaalameen jaa-adhum ayaga ay u timid albayinaatu mucjizooyinkii cadcadaa.
ولكن بل سيختلفوا ويسخلافين وحكاني لقالك خلافا كدحق الحي فمنهم وحاكمدا يعني أمده من أيا كمد دولك آمن بالله ورسله الله رسوله سلمي ومنهم وحاكمدا أمده من دولك كفر قالوبي الله رسولك قالوبي marka waa sabab yani qitaal wal ikhtilaaf sababka ay isku dagaaleen oo isku khilaafeen waa in qaybna ay muuminiin noqdeen qaybna ay gaalo noqdeen marka dadka muuminiinta waxa la amray inay gaalada la dagaalaan walaw shaa Allah ilaahi duuni laha maqtatalu ma ay dagaalameen yani dagaalka iyo khilaafka ummadaha dunida waxa ilaahi ajiyay ولكن الله إلهي بل سيفعله سمايا ما شيء إلهي سمايا شيء يريد ودونا وحدونا إلهي سمايا سبحانه وتعالى يا أيها الذين كوي آمنوا الرميين أنفقوا بحية مما شيء حقيس وحكب بحية شيء ورزقناكم أن ينكو إرزاقني من قبل أن يأتي يوم مال انتو سندين إمان كهر بحية maalinka walaa baycun wax gadasho fiihi maalinka dhexdiisa uusan ahaanin walaa khullatun wadaytinimana aysan ahaanin walaa shafaacatun ergeyna aysan ahaanin ilaahay markaa wuxuu usoo jeestay dadka muuminiinta inuu ugu baaqo inay wax bixiyaan waxbixintaas laba macnoba waa loola jeedaa sadaqada waajibka oo zakada waajibka waa loola jeedaa waxaa kaloo loola jeedaa sadaqada sunnada ah oo qofkii hadda hanti zaka gaaraysa aan haysan wax yarkaa uu hayo wax unha ka bixiyo weliba mintu waxay faa'iideynaysaa tabciidiya waa qayb ka mid ah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenoo anfiquu bixiya mimaa shay xaggiisa wax ka bixiya shaygoo rasaqnaakum aan inku irsaaqnay min qabli an yaatiya min qabli ityaani yowmin min qabli an yaatiya yowmun maalin intuusan idin iman ka hor waa yowm alqiyaama يوم كلا بيع وحجدشو فيه الدلالة هذه صلى الله عليه وسلم يعني يجوز إعمالها وإلغاؤها هذا قردة عاصم ولا إلغائي لكن قردة أبي عمر لا بيع ولا خلة ولا شفاعة أساسا وعمل سي مال كلا بيع أما لا بيع وحيبسي فيه مال كده يسوس عنه ما أنت فرصة هي الدين وإلهي ليه ما أنت فرصة هي ستين intaad wax soo galato aad sadaqaysan karto waxbaad soo gaday oo sadaqaysan karta walaa khullatun wadaytinimo iyo saaxiibtinimona fiihi aysan ahayn maalinka dhexdiisa yani qofku saaxiibkiis ayuu ku cararaa marka uu rabo inuu wax bixiyo saaxiib wax laga soo qaata male walaa shafaacatuna aysan fiihi ahaynino geliin ama ergana aysan ahayn aad wax ku soo qaadato والكافرون كوا قالوبي هم أيضا الظالمون كوا نفتر ذلمية كوا قالوبي أو مالم كاس كوا قالوبي مالم كاس إنه إيمان ينوسن إيمان ينبا يعني وحوي عن بيقين سنين كواس والحسرية ظلم يوضن وكفر إن الشرك لظلم عظيم سيد الله بيه الله إلهي لا إله إلا حق الوعابد مجر كونك إلا هو السلام هو إلهي يسوع قدر الحي على النار الله سوء القيوم أتقنا شبضا بتدبير خلقه سمام الكود أتقنا شبضا لا تأخذه إلهي مقبته سنة ظلم ولا نوم هرد إلهي مقبته له إلهي وحا أصغنا على ما شيء في السماوات عرق كسغا وما شيء في الأرض ولك كسغا من قف كيب ذا أي الذي تيؤيهي الذي كاو يشفع إرقيني عنده إلهي أكتيسا إلا بإذنه أقلانشيه سمويانه يعلم إلهي وحوك سنيهي ما شيء بين أيديهم دتك ورتو ذا هذا وما شيء خلفهم قراش ذا هذا ولا يحيطون ضدك مكروبيان بشيء وحباء شيء من علمه إلهي أقونتي سكملة إلا بما يشاء إلهي ودونه وسعه بلارنا ذي كرسيه إلهي كرسيسه السماوات عرك والأرض ضللك أيك بلارنا ذي ولا يؤده إلهي معصليه
حفظهما عرق يدللك إلى لينتولا وهو إلهي العلي الله الصريوي العظيم اللويم. آية محللة آية الكرسي وأعظم آية في القرآن الكريم. آية أبوين القرآن الكريم كوي وحين معناها شرف كاس أي كويالتي وحي كحد ليس من بدايتها إلى نهايتها إلهي صفات كيس سبحانه وتعالى أوله إلهي مخلوقات إلهي أردن أي كحد ليس. ولذا آيات نبينا صلى الله عليه وسلم وحكى سبناتي إنه يري من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة دبور كل صلاة كاستمر تكذب آيات قفك أخرية لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أو كما قال يعني إنه الجنة قال وحا كحيقة إنه لنتو يعني ما كسياس لي هذه آيات وعمل فلكي واجباتك أي أمريسي يوحي إنه كهر أي آيات وكهر لعصو كده ذلك haddana wuxuu ka dhigtay wirdi oo salaad kasta oo waajib uu tukado markii uu ka baxo ayuu akhriyaa. aayadu waa aayad fudud qofka muslimkaana laga rabo inuu dusha ka xifdiyo. waxaa kaloo nabigeena ka sugnaatay sallallahu alayhi wasallam in la akhriyo aayadan cinda nawm qofka yacni marka uu jiifanayo hadduu aayatul kursi akhriyo yacni waxa weeye ilaahay malab u soo diraa ilaalinaya ilaa waagu ka bariyo. waxaa kaloo nabigeena ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam inuu amray qofka muuminka inuu dikri yawmiya oo raatiba uu aayadan ka samaysto markuu waagu u bariyo inuu akhriyo ilaa galabkii qofkaasi sixirka iyo shaydaanka iyo maaragtay waxyaalaha dhibaataynaya isha iyo jinniga kulli ilaahay uu ka ilaalinaa ilaa galabtii laga gaaro. galabtii haddana markuu akhriyo ilaahay haddana uu ka ilaalinaa ilaa laga gaaro waa berigii. marka markasta qofka uu dareemo caajiz ama il ama shaydaan ama culays uu dareemo inuu akhriyo ayaa lays amray aayadan sida nabigeena uu sheegay sallallahu alayhi wasallam. waxaa kaloo jira xadiis imaam al-Bukhari iyo qayrba ay wariyeen ayaa waxaa dhacay nabigeena sallallahu alayhi wasallam zakada markii yani la soo aruuriyo gurigay lahayd oo masaajid kamida oo zakada lagu ilaaliyo hadday raashin tahay hadday lacaga tahay. marka wuxuu wardiye uga dhigay bakhaarkii lagu aruurinayay maalkii zakada Abu Hurayra saxaabiga la yiraahdo. Abu Hurayra ilaalinayay. Abu Hurayra marka wuxuu yiri waxaan arkay yiri waqti dambe habeenkii markii la gaaray nin odaya oo gurigii furay ee alaabtii daldalanaya zakada meel uu ka soo baxay iyo meel uu ka soo galay ma aqaan gacantan ku dheeray markaasaan yiri tubiyo nabigan ku geeyay sallallahu alayhi wasallam. marka ay ugu calaacalay wuxuu yiri nin waayeel oo odayahan ahay ilmaha iga gaadaysan ku soo noqomayo sakayda caaw. Abu Hurayra nin iska qalbi jilcan oo haa iska fasaxay waagi markuu bariyay ayaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra wuxuu ku yiri ma facala asiruka al-barih ninkii xala aad qafaashay ee soo tuuba aad qabatay muxuu sameeyay. markaasoo iriir rasuulka ilaahay oo gaajo iyo wuxuu ii sheegtay yani way ugu calaacalay waa iska sii daayay wuxuu iigu dhaartay mar dambe inuu ii soo laabanay. markaasuu nabigu wuxuu yiri beenlow waaye markaa tagaayo ku iman doonaa. Abu Hurayra isagu ma yaqaan laakiin nabigu uu ogsoonyahay sallallahu alayhi wasallam. habeenkii labaadan haddana isagoo guraya hantidii ayaan qabtay buu yiri markaasaan sidii oo kale ayuu haddana ninkii iigu cabaado yirinayo sakaysiida saaxiibul ciyaal aan ahay yani ku soo noqon waayo. haddana waa ii dhaartay yiri waa iska sii daayay yiri sidii haddana nabigu yiri ninka waa beenlow markaa maqnaanayo. habeenkii saddexaad waxaan yiri ma ku daynayo nabigan kuu geynaa adigoo maaragtay tuuga gacantaana laga jaray. markaasuu wuxuu yiri Abu Hurayra ballan waayo mar dambe kuu soo laabma sakaysiida laakiin waxaan ku baraa mas'ale cilmi ah oo muhiim ah oo hore u aqoonin ayaan ku baraa. marka Abu Hurayra waa cilmi jeclaa qof walba meesha jecel yahay laga soo galaa moogta. markaasuu maxay tahay markaasuu yiri yani ida awayta ala firashika ida awayta ila firashika faqra ayat al-kursi fala yaqrabannaka ash-shaytan. markaad gubashaada sariirtaada u dumantid oo habeenkii aad jiifanaysid aayatul kursi akhri shaydaan kuu soo dhawaamayo. shaydaan markiis agtaada imaamaayo
فمسألة مهمة ما هبطاها واي واسك سيدايين markaas waxa dhacday rasuulkii marka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ila ka waran ninkii tuubi xala qabatay rasuulka ilaahay marka mas'ala cilmi aan ku sheegaa wiili saas ugu yiri hadad ayad kursi akhriid shaydaan agtaada imaamay ku soo dhawaanay markaas nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam sadaqaka huwa kadhub sawa beenaale oo markasta been kama tago laakiin mas'alada uu sheegay rumwa shaydaan ku soo dhawaanay markaas nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra ninka habeen kasta ku qafaala ee odaga garanay markaas ayri rasuulka ilaahay oo maay markaas weerinka asaaba shaydaan ahay shaydaan waa duqas yani rabay in dadka masaakiinta ala sadaqaysan in zakka la aruurin yani in wadiga maartay ku gaado taas u dabay marka aayadu waa aayad cajiib ah oo qofka muslimka laga rabo markasta carabkiisa inuu dhigri ku aqriyo waxyaalaha kale ku fiican tahay kamida ay quraan ka dhan uu daawo yahay dadka jiran waa lagu akhriyaa Allahu ilaahi la ilaha illa haq lagu caabudo koonkan kama jiro illa huwa asagan huwa ilaahi qadar الحي الله نور الله نور القيوم وتابنا شغلا بتدبير خلقه مخلوق سمام الكل سأتابع وحاص وخلائق يعني كان دلنا كان دمنا كان دقوبة كان جورسنا كان جرنا كان وحلا كان انت صليها سامنا لا تأخذه إله مقبة سنة ظلم سنة وحال إلى يعني الثقل والفطور قبل النوم وليس يدالك انت هذا هردد الجليل كو إيمانيا مدح يجيك كو إيمانيا إلهي ظلم مقبته ولا نوم هردد إلهي مقبته ما دام وحلوأتكي إن هذا اسمهن انتاس أو خلقه أو إلهي معمولا سيكون دعكتا إلهي ما بلغ الموضوع له إلهي وحا أصغنا علي ما شيء أصغنا علي شيء في السماوات عرفك فسغا وما شيء في الأرض دولك فسغا يعني عرفك دولك وحا فسغا ومخلوقا يعني أسغى إلهي ملكا وخلقا وعبيدا أسامى ملوي من وفكيرو ذا أي الذي كيئو يهي الذي كاسو يشفع قليما أو شفاعي عنده إلهي أكتيس إلا بإذنه أو قلانشه سمويان يا إلهي إنه إذن أو قلاده معهنه يا شفاعك الاستفهامك وإنكاري ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سيد إلهي بأولي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ما شفيعي كلام عند إلهي راضيك النظام وياني يعلم إلهي وعكسوني ما شيء بين أيديهم هرتينا هذا وحلقوا ولا وحكاه رأي وآخرة والي يوما كي خلفهم قلاشينا هذا الدنيا وكل عكسين كرتا وحهرتينا كاه رأي وآخرة يعني وحولي وحكاه رأي والدنيا وحكاه رأي وآخرة أما أديك حالة أقصى لنتهاي وحا كاهر مري إيه وحا كادم بين إله وبيها ولا يحيطون ضدك مكروب كرام بشيء وحباء شيء من علمه إله يقول تيس كامل إلهي علمه سوك لقف هلم كرام أو وحكوه عنك مجد من علمه وحلو لجد من معلوماته وصفة إلهي وخاصه وحا إلهي معلومات كيسا قف كوب كرتمجد إلا بما موياني ما هو شاء إلهي ودوني أنت إلهي وعلمي سنقبري ومبان كبرني وسع إلهي وحير وحا بلارنا عدي كرسيه إلهي كرسيسا وحو كبلارنا عدي السماوات عرفك تضربها والأرض أورلك تضربها إلهي مخلوقات كي سواوين وحاكمدا كرسيا وحاكمدا عرشيا لكن وحل كرسيا عرشيا وحاسمي عرشيا كرسي وصرير عرشك هوستي ستالا marka waxa la yiri kursigan weynankiisa intuu qabo todobada samo markii la isdhinac dhigo iyo todobada dhul markii la safo waa 14 baaxadooda mid walba aad aragtay waxay la mid yihiin markii kursiga loo nisbeeyo ka halqatin fi falat
jijin dhul bahgooya dhul saxaraa jijintaala ay noqonayaan leeyahay laakiin anagu ma aragno kursiga carshiga yani waxa weeye ma aragno indhaheena caqligeena ma qaban karaan wax anagu aan aragno cirka iyo dhulka ayaa ugu weyn wey adigana waa aragta dad cirka fiirfiirido ama dhulka fiirfiirido waad wareeraysaa haddana waxaa leeyahay kursiga iyo carshiga markii la isu fiiriyana wuxuu noqonayaa leeyahay kursigii sidaas ahaa wuxuu noqonayaa asaguna jijin oo dhul bannaana taala ayuu kursigii markii carshiga la dhex dhigo ayuu noqonayaa oo acdamu makhluuqaati illaahi waa carshiga ilaahay wuxuu yidhi walaa ya-uuduhu ilaahay ma cuslayo xifduhumaa cirarka iyo dhulalka ilaalintooda يعني أنا لو أركتو درب هذا بسنة يعني هذا مركز الجوهرين لو سمعين شبكة إنه الدماء يوارد إلهي عليه سبحانه وهو إلهي العلي الله سريع العظيم اللون وإلهي علوا معنويا وسريع يعني وعظيم بلا جسم لا إكراه قصب في الدين دين تلحيد معه دين تلسكما قصبه دينته ونصيحه دينته وأمر وقادشه وحد القنا مجرى لا إكراه تلقين دعم قصبي في الدين دين تلعيد معهان قد حقيقة تبين وحى عضاضي الرشد هنونكي أيام من الغي بعضي حقيقة عضاضي هنون إبالي ويكالعدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن آية محل ولا نسخي وحاله نسخي بآية القتال وهل قصبة قفكدو قال هاي ودينت وقادم واي ولا قصبي بعض العلماء قيلين المفسرين وحي كسر دكت آية من أنسارية أي دينت إسلام كسوق علي ولكن لو ويلو دلي أي دينت إسلام كان يلقلان أنا بحدهن وحنقلنا دينت كريستان كوي كريستان وبين دينت نصارى ديقلن ولكن أبي سيف وقاتي ويدين دلابوي marka nabigu u geeyo wuxuu rasuulka ilaahay labadina wiil diintii way diidan yihiin waa inay soo galaan ama qoortaan ka daray maxay yeelay wuxuu yiri aniga ma ogoli aniga cad aniga mid inuu naar galo ma ogoli ilmahan cad iga midaw naar ma ogoli ayadana leedahay qasbi faman qofkii yakfur ku gaalooba bitaaquuti sanamka ama shaydaanka labada waalida qofkii ku kufriya oo yu'min billahi ilaahay rumeeya faqad haqiiqa استمسك وحو قبصري بالعروة مريكتي أما دفتنتي عروة الوثقى أغيك بدنات عروة لم في سامة وحق إيدا لها عروة سوسوسنا يعني قف كنو الدين تسبب أوقات إلهي وحو كبغي إلكاس حرق لغسو لالذي ولي بحرقاس دفتنت أما مريكتا ماشا وحكاقل أي أكو أركتهم قوئين قف قبصري فمن قفك يكفر كفر بالطاغوت سنمك أو يؤمن رمي بالله إلهي فقد حقيقة استمسك وحو قبصري بالعروة مريكتي الوثقى أغيق بغنات أما كالسوني بغنات عروة لم في سام القئيد لها عروة يسوع سبنان والله إلهي سميع الله هذا الذي أدومدي سمق الله ومقلد بدن عليم الله كعلم بدن وحاله بدن الله إلهي ولي الذين كوا مد معمولة وأرمه ذا توليه آمنوا عليه رسول رميان يعني الله ولي الذين أن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يعني غفك قيل إله أرنت على التولين يكون قرقارايا ونعمة وين الله إلهي ولي الذين كوا مد أرمه ذا توليه أو قرقارايا آمنوا رميان marka gargaarkiisana kamida yukhrijuhum ilaahi mu'miniinta wuxuu ka saaraa min adh-dhulumaati mugdiyaalka xaggooda ilaahay ka saaraa ila nuuri xagga iftiinka ilaahay u saaraa yani waxaa laga saaray waa la jamciyey yani mugdiyaadka dhulmatu ljahli dhulmatu shirki dhulmatu nifaaq dhulmatu shaki dhulmada leeyahay ama nuurku la yatacaddad waa diinka islaamka waa keligiis wey والذين كوا كفروا قالوا لنا أولياءهم كوا أرمه ذا توليه ومعمله الطاغوت شياطين كوي يا سنامت والذين كوا كفروا قالوا لنا
أولياؤهم كوا أرمه لتوليهم معمولا الضغوط والشياطين يخرجون شياطينهم كوا كافرين تبعالها وحي كسارا من النور افتين حقيسي كسارا وبالعكس إلى الظلمات المجديدة حقود يصارا شيطان وقفك خيركم وقال علم دين ولقيستو صلاة دين وتكل صدقاء دين ولبحو إنه إلهي يحصو مجدقوا أولا فسق إيا منكر إيا قال نمد أولئك كوا قالها إيا كوا شياطين تبا أصحاب النار نار تساقي بلي ذوي هم يبون خالدون ويواران فيها نار تحق دحدي كواران بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ألم ترى صوم أركن نبي إلهي ألم ترى صوم على أركن كان الله هذا لغضب ولا خضاب ألم ترى معناها واستفهام التعجيب لا يقوى ألم ترى صوم أركن نبي الله إلى الذي قال كي نمرود كاها حاج الله مرمي إبراهيم نبي الله إبراهيم في ربه سكلام مرمي ألم ترى صوم أركن إلى الذي كي حاج لطوضي إبراهيم أي لطوضي عليه السلام في ربه إبراهيم ربه سكلام يعني أما ضميرك وحاول عنيس الذي أو محاجية أصلا محايا الإله نبي الله إبراهيم ربه وياه قال كان وينه إله نمشي قرانا إله وياه ربي يعني هكذا عن كبير لنا قصة نبي الله إبراهيم مع النمرود أو عالم كأردن بغرطوية أفر من أي إلهي وقعنت أقلي أو عالم كأردن مرحكا مقاطي لغا مسلم أهايين لغا نقالي أهايين لغا مسلم كا ونبي الله سليمان ابن داود الدون كأنه كتلين جري نينك كلانا وذو القرنين وصورة الكهف قصة سامو تجدونه اسكندر اللي جري ناناسي سنة ذو القرنين سنة الدون كأنه كتلين جري ما أهينا سلو النبي ولي إلهي وأها لغا قال كان هذا نينك نمرود الدون كأنه كتلين أسوأ الدون كأنه كتلين ولي إله نيما لو أمين سنيهي هي النبي إبراهيم قصة بيدميو نينك كلانا وأها نينك يهود اللي جري وقت نصر لو رنجري إنك أصنع الدون كذا وكتير أصنع قالوها لكن قال لي مجلسة إله أيوة سكوت جبيه يهودا أيوة جماري أو طلبات كم أو مانع كدلا ليهودا مركا نك نمروده وحسني مركي نبي الله إبراهيم ضبكي الورد ضبكي وقلوب النقطة سيدنا قلت جدا إن شاء الله سورة الأنبياء أيوة لي عبي يعني وحول نيك كان أنا أقول أن كديره ملهي ضب أنت صو بلاد الشداء أي عند أحد جاي أنت صو مرت هذا الدهمان قليل هل إيه كانوا حنسمينا ولا دود والإله هو شجعنا أي كلا دود لكن نبي كاستوحى معجزة الله لها قوم كالله دري وحيالها أي عام كلين أما أي ضدك وهرايا نبي الله إبراهيم قوم كان نمرود وحي بلايك وقبل مرنك أي بلايك وقبين سيد حلق النبي الله عيسى الدرعي بدد كيسو أي وتخصصين داويتا نبي الله موسى حلقي سي سحرك نبينا صلى الله عليه وسلم افتهني مدى مركا والله يعني وحيل وحن كاربا مركا نمرود نبي الله إبراهيم ربك عابديسي إن دور أنا يالك على قلب مركا الله كاسو مبهر وحليه جل جلاله ألم ترى صومعك إلى الذي كي حاج لطوضي إبراهيم في ربه كلطوضي أن آتاه لأجل أن آتاه الذي قاس الله إلهي إنه سيدرتي لطوضي الملك بقرطوي وعكب الكاس قاسي إنه ربي كطوضي وربي ربي نمدي سو شك قليو إلهي وحوسي ملكية عمل بقرطوي طعمة أو عالم كأردن أو كحكمه إذ وقت أي لطوضي قال إبراهيم إبراهيم أولي ربي أنيق ربي الذي وأله يحيي وحنولي ويميت وحدلا يعني وحكم ريسي ربي وكم ويلي ربي أدعى ليسي وكما مركاسو يلي أنيق الله أنيق معرة ربي جيجا وحبون نولي وحنا وحدلا تنو أخر ملي أنا حجة وين وحكمتها فصاحة لقفكم خالد دوديسي حجة أبد وغمون بالله قول كان السوق ليا إذا وقت أي والله ضاضي تاخذ وقت تعالوا جين كرتان وإذا وقت إلهي يوسي أما إذا وقت والله ضاضي
قال إبراهيم أوي ربي أنا ربي الذي وعليه يحيي وحنولي ويميت وحندله قال مركز قال كي نمرود يحيي أنا أحيي وحبان نولي ويميت وحندله أنا وحبان نولين كرا وحندله كراه سكر أوقات مركز وحوي جالك أما حبس كدتك وجرى لك فريق سهاي لبنان ودمبيد الدلك كحكما يسوع بحيوي لبنان ودمبيد وين فالدمبيد كدلك كحكما أيها كان مركز من ماشى مضح وجرى قارتها لجا جرى ويري مثل كلام وحوي عدة ديسكات مركز سهل من وحوي وعقد تخلصي من نوع نوري وسيداي تصبقات قال إبراهيم النبي إبراهيم وحوي فإن الله إله يأتي وحولي ماذا بالشمس قرحها من المشرق يعني بري أما قرح كصباح حقي لي فأتي بها قرحها هذه كلائمة من المغرب قرحها حقي لي فعنت إلى إلهي سبح قرحها كان كصباح يا صلاة انت سأركين وصلاة كاسي كصباح يسي صبح الجوج حقك كان ويرا إن الله قال إبراهيم وحولي فإن الله إله يأتي ولي ماذا بالشمس قرحها من المشرق قرح كصباح حقي لي أما بري حقي لي فأتي بها قرح كلائمة من المغرب قرح دعا أما قلبيت كحديثة فبهيت وحا جهوريري الذي كي كفر الجالوب جهوريرا كدعا بهيت وحا كملتها أفعاشي وقلالك أهد أو لفظي أنا مسمك كأهد مجهولك معناها أنا مسمك أهد فبهيت وحا جهوريري وجنوك الذي كي كفر الجالوب جهوريري حوشي ذا قرح المحاكي كلينيكا عد dadka xataa shakiga galay dad badan way ka noqdeen diintiis wallahu ilaahi la yahdi ma hanuuniyo alqawma qawmka adh-dhaalimiina dhaalimiinta kuwa gaalada ilaahi ma xujo ku hanuunin maayo aw amase ara'ayta usoo qadaro aw amase ara'ayta ma aragtay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kalladii kii marra soo maray calaa qaryatin magaalo dusheeda soo maray walxaal hiya magaaladaasna khaawiyatun ay dhahday معنى أي تامد يعني دعدي على عروشها سنقافيال كيدا كور كيدا كور دعدي يعني قصة كلام بينا قصة عزير عليه السلام يعني نكر عزير لذا أسنان نمول إلهي صالح هوها حلق نبي موسى كبعلي أي إلهي كسو أدي كتاب كتوريدا هي بنو إسرائيل ونم كل جيسا كيقانا لي من دعالي صلاة قبلنا هوها أكتودنا لوح شمير أو أمس أرأيت ما أركتي كالذي كي مر صامر على قرية مقالد الشيء والحال هي قرية خاوية متبعدي أي تهي على عروشها على بمعنى معها كليكا مع عروشها سنقافيل كذا اللي جكي يسكو بعض أما والحال هي قرية خاوية متكبدو بعدي أي تهي على عروشها سنقافيل كذا كركي يعني قرية مركي لخربي دربي مركه وحوي انتو صندعين سنقاف يا صنع إلا واحدة على الجل وحاول رأي سنقاف مرك سنقاف صنع دربي يوحي كرضنا أي كدور العين مركا نكان وعزير عند إله الله عضلي ضمير ووتي وحكذا ووتي راشين ووتي أو يعني زبيب الرومان راشين كرسان هيل أي ووتي biyo qasan oo casiir ah watay aana waa watay ninka marka magaalada uu soo maraayo waxay ahayd Baytul Maqdis dagaal weyn ah waxa ku qaaday ninka hadda aan ka sheekeynayna ee Buqtamasan oo ka xanaaqay Yuhuud markay dileen Nabiyullaahi Yaxya alayhi salaam markay dileen ayaa Ilaahay ku saliday ilaan Yuhuudda dad muslimiin oo sunniyiin kaliya lagu masaliyo hadda intaas oo gaar intaas oo shiica ku garaacda ونمان إلهي مطلق علي هلكي قرنبا markii konton nisfi la joogo konton sano ilaahay uu baabi'iyo ninkaas gaalka ayaa markuu wuxuu sameyn jiray hal maalin wuxuu ka dilay 70,000 markuu ugu yaraado 2,000 ka dili jiray ayagana waa baabashay magaaladii dhan wuxuu ka dhigay magaalo isku dul fadhida qaal markaas wiiladii ninkii wuxuu yiri anna sideeba yuxii uu nooleynaya haadihi tan الله إلهي سوء نولانيا بعد موته لمشهد كذا وصل هذا اللي أسرع صل هذا كل جي سوليا وقرير شيء بابالي مقالة إني صار لسانتو معناه وحساس الله هاي اللي
ninkan buqtu nasarka wuxuu sameeyaa lii yuhuudda markuu dilay uma simin lafahoodii hilibkoodii uu shiidaa waa shiiday markaasuu sidii dambaskii ayuu dhul ku daadiyay hal qofna kama baaqi noqon marka wuxuu la yaaba dadka noocaana say magaalada inta u noolaato dad ugu noolaan doonaan qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi annay sidee baa yuxii ugu noolaynaya haadihi qariiban allahu ilaahay bacda mowtiha dhimashadeeda ka gala dhimashada wuxuu ka wadaa dukum daakum fa amaatahu ladigi allahu ilaahayaa dilay asagiyaaba dhimo la yidhiba yani waxaa rabaa in la tuso ninkaan ma shakisna laakiin wuxuu rabaa caynulyaqiin oo aduu yidhi oo kale waxaas waan aaminsanahay laakiin waxaan rabaa si qalbigaygu ugu dego isagu ma shakisnayn nin saalix ahoo kitaabka towrad xifsano ambiyada dadka ku xigo awliyada ilaahay ka mid ah fa amaatahu ladigi waxaa dilay ninkii allahu ilaahayaa 100 caamin 100 sano ilaahay dilay asagiyaa 100 sano dhinsanay uma markaas ka bacdi 100 sano ay dhammaatay bacathahu ninkii ilaahayaa soo saaray naftaa lagu soo celiyey marka waxaa loo soo diray jibriil qaala markaasuu malagii jibriil wuxuu yidhi ama ilaahayba ula hadla waa laga dhigi karaa qaala markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi kam imise ayaad labista nagaatay kulliba xataa inuu dhinta xataa isuma haysta asagu meeshaan meentaad ku nagaatay markaasuu qaala wuxuu yidhi ninkii labista waxaa nagaaday yowman maalin aw amase bacda yowmin maalin qaarkeedaa nagaaday markuu dhahayo maalinaa nagaaday xogaa wuxuu dareemay nin hurday oo soo kacay haddana uu ku shakiyo wuxuu yidhi maalin maba dhamo maxaa yeelay markii uu meesha soo maray subaxnimo horay ahayd barqo ah haddana markuu qoraxdii fiiriyey qoraxdu way sii dhacay marka maalin maba dhamo wey qaala ilaahay markaas wuxuu yidhi bal iska dhaafay labista waxaad nagaatay 100 caam 100 sanaad nagaatay 100 sano ayay naftu kaa maqnayd mucjizaadka waxaa ka mid ah aduu waxaad leedahay sida ilaahay u nooleynaa magaaladan fandur fiiri ilaa dacaamika raashinkaagii fiiri cuntadaadii iyo sharaabika cabitaankaagii fiiri lam yatasanaa xaal uusa isbedelin kullun minhuma min atacaam washaraab ma doorsoomin waxyaalaha waxaa ka mid a ugu degdegta badan isbedelka raashinka qofku raashin bisil hadduu wato caawa haddii hadda laga hadli maayo faranjeere iyo waxyaala koronto loo adeegsanayo laakiin raashinka sida dabiiciga daqiiqad isbedelaa ku imaanayo lama cuni karo cabitaanka casiirka asagana wuxuu ku jiraa waxyaalaha isbedelo ugu horeeya waxaa ka mid a caana oo kala go-aya marka fandur fiiriya ilaa dacaamika cuntadaadii iyo sharaabika cabitaankaadii lam yatasanaa xaal uusa isbedelin kullu minhuma wandur bal fiiri ilaa ximaarika dameerkaagii fiiri dameerkii waxaa layidhi ilaahay qadartiisa dameerka waa dhintay lafihiisii lafba meelay aaday hilibkii iyo saadihii kulli ciidaa cuntay 100 sano xataa waxba dameerka lagama arki lahayna asagaa ilaahay ugu talagalay intaas lafahaas inuu arko walinajcalaka marka jumlada waxay ku cadsan tahay jumlo maqan wainamaa facalnaa dalika usoo qadar sidaa waan samaynay litactabira inaad cibro qaadato laamukeydaas kale ay ku cadsan tahay jumladu ku jirta wainamaa facalnaa dalika arrinkaas waxaan u samaynay litactabira inaad cibro qaadato iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno aayatan aayad mucjizo ah linaasi dadkaan kaaga yeelno dadku inay kugu cibro qaataan maxaa yeelay 100 sano waxaa layidhi ninkan ciddiisii way waayeen ilan magaaladan magaalo la soo gala maahayn asagun jidmarku maraay way waayeen way ka samreen oo tacziyi u dhigteen waa ka islaantii isniin kale iska guursatay ilmihii waa waaweynaadeen cumrigii gaareen wax kaaga daran ilmihiisi ilaahay ma dilinaayo ilmihiisii iyo islaantiisii waxay gaareen 100 sano iyo cumrigii hore u jireen asagu markaas waxaa nin 40 jir u ahaa marka ilaahay wainamaa facalnaa dalika waxaan u samaynay litactabira usoo qadar inaad cibro qaadato iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno aayatan linaasi aan kaaga yeelno ama waa sifayn kartaa aayadoo linaas ilaahay marka wuxuu wandur fiiri ila alcidaami lafidii dameerka fiiri kayfa sidii nunshizuhaa aan usoo hinginayna lafaha yani ama nunshiruhaa aan usoo kicinayno lafidii yani nashziga waxaa la yidhaha shaygu markuu quwo isku galgalo jig isku soo yihiidaa wandur bal fiiri ila alcidaami
يعني لفيه ضمان كفير كيف سيدي نمشيزها أنسو هنجينينيو أما أصلا نمشيرها أنسو فزينه ثم مركز كبعد نكسوها أنه هوينينو ونقول لبسينو لحما هيبو لفيه وقلالات يساليه أيا حب سقلقلي مدحية سؤردي دبرتي إمانية سنيه يسينتي علوشي تيك وحسكرة كلمة مركا إنه هو فيرنا دميرتيسي هذا نقول ثم نكسوها أنه هوينينو ونقول لبسينو لحما هيبو دميرتي هي المقام دمير عصب قاق أو بالعرب دمير بقولك سنة ليسان عبيتانك يعاني هنا ما أوريان سيدي وعافيان وراعي سيدي أكرم عبيتانك سيدي أمير فلما قلت تبين الأمر فعلت أسكم حديث والسوري أرنك مركو أعدادي له ننك أرنك أعدادي قال مركا سهري علم وحن أغهي أن الله إلهي على كل شيء وحول بقدير من الله أبوده تبارات كان هاي سهو حلونا ولين هدن به ليا مغلب ما هو بسمع وكان عزيز حالي الدمير كسكروتي معجزة ساقط علي عدي وتقالي عدي مركو تقولي أنا عزيز أنا هايو المجيء مقع الرساسة اللي إسلامتي هلا هذا عزيز نكاس بقصنا قرآن كسمرنا لي واليسوع يمد مقالدي يهرب من إسرائيل ومركز ضد علماء جوجان وحله عزيز هذا هاي عزيز إلهي وحوسي صفة وقاء وهل كنين أو كتاب التوراة حديثا كتاب التوراة اللي كبح كتاب التوراة وسيدي فاتحة القبحي مخوع عداته حله المهن هذا الإسلام تاني هذا كان قرابان هذا كذا شيء عندي سوء لني لكن إذا ترى جبته أصيبه فرتنجر إلمي سينا وبقول يوم زاد يجرا أبليهين أيوة تنتظر العادات والريال عتشة سجنا هاي أوليه ويلوا بالعكس معجزات كم مثال قرآن كذا هذا وإذ وقت حسن محمد صلى الله عليه وسلم أمود هذا نقول سيد قال إبراهيم النبي الله إبراهيم أوليه وفي القصة لا بقى قصة كلام النبي الله إبراهيم وإذ وقت حسن قال إبراهيم النبي الله إبراهيم أولي عليه السلام ربي يا ربي ربي غيره أريني إتوس كيف سيدي تحيي أدون وليسد الموتى بدك بنتي مركي دينتي لقاتي أو نمرود الهلالي أو النمرود سمعنا شيئين مركي حجداس وكؤوي إلهي البريين كان أمضى إلا دافين هاي الدون كده من قالوا كتلنا لي بدنوها بدك الله مركا نبينا إبراهيم وحلا لو وحيوده نمرود وحد دليل سالي أسوأها قال عيد مجلس الدون كلام كتاليا حنتيجي الدون كلام تام أسيلفتي سنة وحوانين ردتك يوم مليه هراء كسر جيدا أو حب بدنوها أو أكتي سليمان كريم مركا وحنا نقول إبراهيم لو وحيوده إلهي وحيوده سبحانه وتعالى وحا إلى هذا الشيء أو يعلى شيء كناعة أو قرف كجران كناعة الأكسوني هو ضد كدي جودي كناش لكن وخلق بكرة ما هنا بعض اللي وين هذا كناعة الجمال دولي كرتو هذا يقول سوء أدنى ولا قبنا مركو حتى إلهي وان قاعد جودي وعن ربعنا دي رزاقي إلهي مركو حنكو ريولي نمرود مستحديثة أي قرعة على قدر عشرة الموجريو وأنا كاس نمرود marka nabi Ibrahim waxa la yiri inuu dhimaayo sheeg laakiin waa la dilay laakiin kana caadi uu sheegay marka nabi Ibrahim wuxuu ku yiri waqti hebel saacad hebel ayaa nafta ka baxaysa waa la dilay ninkii marka wuxuu sameeyay ciidamadiisii oo dhan adduunka jooga u yeeray su'aal laga qabtay aan li soo galay qof far isoo taagay hada aragtiin marka ka jaar ciidamada marka kana caadi aska timid kana caadi u jeeday say hogmanin uga soo dhexbixaysa kilkishiisa iyo garabkiisa ay sanka ka gashay warwaama maskaxday fariisatay inuu halkaas kale maskaxdiisii cunid ku bilowday kana garabka u raystay oo iska cayish gaal maskax weyn waa muuqd marka dadka wuxuu u jeclaayaa leeyi ul budaho wuxuu soo dhigtaa leeyi kursigiisa dadka wuxuu jeclaa meeshii la salaami lahaa usha inta la soo qaato madaxa in lagu dhufto qowl laga sii si baasha xoogaa ay uga degto
جاس قدنت قال كاس بختي والفيل أود وشيئنا سيد إلهي وتصي أودي اسمه ولله جنود السماوات ولله جنود السماوات والأرض. وإذا اقتحس قال إبراهيم ويلي ربي يا ربي وأرني تصي كيف سيدي تحيي أدون وليسد الموتى تتكلمتي. قال إلهي مركز وحولي أولم تؤمن مرة ميلين يا نبي إبراهيم وإيمان كاس مقارب مياه. قال مركز النبي إبراهيم فالبلى إن رمينين كآل ربي وأن رميي ولكن بل ليطمئن فعل كما سألتك وانك ويدي ليطمئن إنه حصل قلبي إلهي وان آمن سنة هددك الانتنا شون لنس إيمان كيبو قنجب الجوبا لكن وحا رباه إن نفط سيحة سيشون. قال مركز إلهي وحر فخذ سوق قالوا 4 أفرتوا من الطير شنبرها كامل أفر شنبر سوقال أفرتها شنبر وحي أهاينا ليلي شنبر وحي أهاي هدود بعد هدود كالإله سماكين يعني وحاول كسورا أما داووس باقا كسورا بأياش شنبر كاس داووس كواه شنبر كالابانا وحو أهاي ليلي باقا ليلة قولية وها شنبر كالابان waxaa kaloo ku jira leeyahay shimirka leeyahay asagana tukuhuna waa ku jira leeyahay kalayrkanaasna waa ku jira leeyahay shimbirahaas afartaa soo qaadan leeyahay qaal ilaahay wuxuu fakhud soo qaado 4 afartoo min at-tayr shimbiraha kamida fasurhunna sulih ilayka xagaaga u soo leexi bidabhi gowrac u soo leexi macnaha shimbiraha haymaysidee وصلوا شنبرها جورعوا ثم اجعل على كل جبل بوركستا دشيدا منهن شنبرها أصحابه جزءا قيب هيركولي كمدو. قال إلهي قال فخذ سوق 4 أفرتوا من الطير شنبرها كمدو فصرهن وصلوا جورع إليك حق هذا ثم اجعل على كل جبل كستكر كيسا منهن شنبرها من لحمهن هيركولي عبد جزء معنا وحالي قيب شنبري انت ودا جورعدي اسكو دردر marka 4 buurood oo agtiisa ahayd ayaa leeyahay shimbir walba cad kamida rubac kamida soo darbe shimbirkan tukaha shimbirkan daawuska shimbirkan diiga waxay ahaayeen daawus iyo diiq iyo yaani waxa weeye qoolay waxay ahaayeen tukay afarta shimbir waxa leeyahay cad كسوقات شنبر كستا marka waxay noqonayaan 4 cad oo ka socota 4 shimbir haddana kala geeyaan leeyahay yani ayuu saa isugu qooshan qayb kasta waxa leeyahay 4 buurood saan marka waxa leeyahay madaxyada ka reebo saa u shaqin madaxyada ka reebo inta dhigo madaxii diiqa inta dhigo madaxii qooleyda inta madaxii tukaha inta madaxii daahortaada dhigo madaxyadu ثم أسبوعنا ندعوهن ويا شنبريه يأتينك ويكون إيمانيا سعيات حال إرديان ويا مركز سوريا اللي شنبريه إلهي أودي سيبو إيمان مركز دويسو قسيهين عدو البوح وكتغا لي ماشي البورتان وعد كسو تغي ربع كستو وحور راسلي 3 4 أما صدح اللي كمقنا أسو كرمت مركز أيام ينقر لهين إيساس أصافيريين اللي ومد والبا يكسو آدي مدحيجي مركز يتسو هادي أي مدحي ركب خصيصة مركز يسيب باليني هادي كورنا ليلو وعلم أباب أن الله إله عزيز تلجس على أرينا إنه يهي حكيم من حكمة بدن مثل الذين كوي تساله لي أيضا صوص على الضم إله رب عضليا وحبحينت إله جهاد كيسا يدين كيسا رب بحيو مثل الذين كوي تساله لي ومثل إنفاقهم أي قد تدل لما ربيع وحبحينت مثل الذين كوي تساله لي ينفقون بحنايا أموالهم حوله في سبيل الله إله جدك سكون بحنايا تصالها كمثل حبة راشنة أو مرأة تسالي سوى مرأة هذا أو مرأة سوقات حبة سوى أنبطت دلسي وإسكام جازي لها وحباليه 7 سنابل تدبصبوا دلس هل مرأة وقليئة هي الدوكتي قليئة ويصابح لي وحكا صابحي تدبصبوا أي كصابحي في كل سنبلة سبول كاستلح لنا وحا أهاتي 100 حبة بقر مرأة وراشنة
كن شلنا صدقيست أم $1 إلهي حكو سمي $7 أو دولار كستانا $7 الدرجة إليها كمثال حبة أنبت بدليس 7 سنابل 7 سبول في كل سنبلة سبول كستدعي 100 حبة آهات حبة ملوي والله إلهي يضاعفه والله الله أجرك لمن قف يشاء دونه أنت أسكبرا كمنا يا إلهي الله والله إلهي واسع فضله الله فضل يسوع بلارين هوي عليم الله كعلم بنوي حواشي حالها الدومديس الذين كانوا ينفقون بخني أموالهم حوله بخني في سبيل الله إلهي جدك سواء عام جهادك علمي مساجدي خيرك دعوتي دينتي كل بخني ثم شرط عن على الشعب ثم مركز كبعد لا يتبعون عن رأسينين ما شيء وأنفقوا أي بحيان من قلديس هي ولا أذن بك قلديس وحواي إن أقف كتلاوة أقصو كري أقصو نولي ما تدو دروفيسا أدون شقه أدون أقومه وأقصو كبير وحوح قلديسا كان الله رسولك استوائك ولا أقولي أم قلده لكن قفك عالي هدو صدقاتي قلد رأسيه وإلى مالين أدو كاجبان تام صوق عنك إلو إذ الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فالمال فالحمد مكسوبا ولا المال باقيا حولنا ما هي أجرنا ما هي ثم كاس بعد لا يتبعون أهل عسينين ما كي أنفقوا أي بحيان من قلديس ولا أذى يبقى محاوية تضاول تنوي بلين ذاتك وحيس إلا قلت إلهي بن عليه السلام تضاول محاوية قفك أو بليل أما أحسين أما أصدق مال قليل هذا رسول دارينا محاوية يعني يقول جعل هاي ذاتك إني كهوسيا وأنت حفيز كستكورس الدولي هاي ليه يعني كمانيجر كها إسكال وحوربا ذاتك إنه رسول دارينا هاي كاب اللي أساس وربا سنة أجر مال وحان إلهي قلت سعود بحلي أدري إلى مفقاتي وسيمنتين dadka marka labadaas tilmaan haday wax bixiyeen aan sadaqadooda raacsin lahum waxayleen ajruhum ajrkooda cinda rabbi rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfan cabsi calayhim korkooda ma ahaanin aakhira ma baqayaan dadka wax sadaqada badan walaa hum ayaguna ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyana ma arkayaan Allah subhanahu wa ta'ala